horta aad baan uga xumahay Soomaaliland waxay ka go'day Soomaaliya ee kama go'in Soomaalida oo dhan marka aad baan uga xumahay Soomaaliya oo dhan meel ay dawlad ku hayn ma jirin marka runtii waxaa jeclaan lahaa inaad tiraahdo dawladda Somaliland inoo soo noqoto waa sidaad u dhahdeen annaguna sidaasaan u dhahnaa marka asaas heshiisku waxaana waxaan aad iyo aad uga xunnahay warbaahinta BBC-da maadaama ay qadiyadda iyo madaxbannaanida Somaliland ay naxli badan ku hayso caqabada koowaad ee ka imanayso dad cuqdadi hayso ayaa kulli u badan wariyayaasha imika ka hawlan majority marka la eego koonfur bay ka soo jira BBC-da imika kaliya dhex kama hay'adda ilaa weligeed ma dhex kama hayn doodaha ka socda in diiwaydin qaadin 20 sano madaxa BBC-da ee qaaradda Afrika ayaa garowshiye ka bixiyay qayb ka mid ah qaladaadka ay ka galeen Jamhuuriyadda Somaliland. Particular debate of 17th of February, the minister raised concerns about the selection of the panel. Waqtii 17kii February ka baxday laanta Soomaaliga ee BBC-da waxaa nooga soo baxay in loo baahan yahay in dib loogu noqdo dadka la soo xulanayo iyo sababta loo xulanayo waxa kale oo ogaanay in waqtiga qof kastaba la siiyay aanu isku dheelitirnayn ee uu dhinac ka raacnaa taasi oo aan imka kadib doonin waxa kale oo dhacday in waxyaabo badan oo aanan markii hore ogaanin aanu hadda ku baraarnay marka ay meel cabasho ka timaado waa laga fadhiistaa baaritaan baa la sameeyaa si adag baa looga hadlaa kadib meesha aan aragno in aanu canaan ku leenahay waanu qaadanaa